Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa safar ku tagaya magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Itoobiya kadib markii uu casuumaad ka helay madaxda waddankaas. Safarka madaxweyne Farmaajo ee dalka Itoobiya ayaa noqonaya kii lixaad ee uu dibadda ku aado, laakiin madaxweynaha ayaa safaradiisa badan ku macneeyay inay yihiin dhisidda xiriirka waddamada caalamka gaar ahaan kuwa carabta kala dhexeeya Soomaaliya. Waxa uu booqday dalalka Sacuudiga, Kenya, Imaaraadka, Kuwait iyo Turkiga. Dhammaan dalalkaasi waxay Soomaaliya la leeyihiin xiriir aan colaad ku dhisnayn. safarkiisi waa batay runtii safarkii waa sax safarkan macno badan uu leeyahay oo adiga shanta safar aan galay macnooyin badan ay leeyihiin. macnaha ugu horeeya oo muhiimka ah in sheega runtii sidii aad wax u sameyseen caalamku waa soo jeedatay. waxay muujisay Soomaaliya waxay ahayd meel runtii ceebteeda iyo foolxumadeeda adduunka oo dhan ciddii rabtay inay wax u sheegto ay tiraahdo Soomaaliya daya levelkaas yeelan gaarin. macnaheedu waxay tahay dadkan waa dad xun yaan lagu dayanin. electionkii hadda aad samayseen runtii wuxuu noqday election historic ah oo caalamka weliba khaasatan caalamka carab ay yiraahdaan Soomaaliya aan ku dayanno. maxaa yeelay si wuxuu u dhacay aad u qurxoon oo peaceful ah. saddex madaxweyne oo kala horeysayna gacmaha isku qabsadeen oo ay muujiyeen solidarity iyo walaaltinimo iyo inay ka shaqeynayaan danta dalka iyo dadka ay ka shaqeynayaan. caalamul carab waxay dareemeen marka annaga waa dhab waa burburnay dhibaatooyin badan ugu dhacay oo runtii caalamku waa nala yaabay muddooyin badan. laakiin taas waxay noqotay wax taariikh ah oo la yiraahdo Soomaali dad jira waay. laakiin booqashada uu madaxweyne Farmaajo ku tagayo waddanka Itoobiya ayaa la filayaa inay si weyn uga duwanaato kuwii uu ku tagay dalalkaas. kaliya ma aha in Itoobiya ay dana fog ka leedahay Soomaaliya, ee waxa ay dadka isha ku hayaan sida madaxweyne Farmaajo u wajihi doono cadaadiska ka saaran arrintan. haddaba miyaa madaxweyne Farmaajo lagu sharfi doonaa Addis Ababa? dad badan ayaa isweydiinaya qaabka ay dowladda Itoobiya u soo dhaweyn doonto madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. haddii ay Itoobiya si dhaba u doonayso inay hagaajiso xiriirka ay la leedahay dowladda cusub ee Soomaaliya, waxaa laga dareemi doonaa garoonka diyaaradaha Addis Ababa iyo mas'uuliyiinta ay u soo diraan inay soo dhaweeyaan madaxweyne Farmaajo. marar badan ayay dhacday in soo dhaweynta madaxda Soomaalida loo diro wasiiro tabar yar, laakiin haddii ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu saxo nidaamkaas waxay ka dhigan tahay in xaalka uu ku bilowday si wanaagsan. madaafiic ma loo ridi doonaa mise fardo ayaa lagu soo dhaweyn doonaa? madaxweyne Farmaajo ayaa si aan caadi ahayn loogu soo dhaweeyay dhammaan waddamadii uu booqday. waxaa laga xusi karaa magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya. roog cagaaran ayaa loo dhigay markii uu galayay xarunta madaxtooyada Nairobi, halka sidoo kale uu ciidamo salaan ka qaatay, kadibna waxaa loo riday madaafiic. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhinaca kale si sharaf ay ku dheehan tahay loogu soo dhaweeyay magaalada Ankara ee caasimadda waddanka Turkiga, halkaas uu booqasho 3 maalin ku tagay.
intii uu ku sugnaayay Imaaraadka ama Sacuudiga waxa uu sidoo kale booqasho ku tagay xarumo waaweyn oo muhiim u ah taariikhda waddankaas. Haddaba Itoobiya miyay madaxweyne Farmaajo kala tusi doontaa xarumaha muhiimka ah ee dalkeeda, gaar ahaan xarumaha dowladda iyo kuwa taariikhiga? Muxuu madaxweyne Farmaajo ka doonayaa dowladda Itoobiya? Dowladda Itoobiya ayaa saameyn siyaasadeed iyo mid militari ku leh Soomaaliya. Waxay si weyn uga dhex muuqatay doorashadii 8 January lagu doortay madaxweyne Farmaajo. Sidoo kale militariga Itoobiya ayaa ku sugan qaybo badan oo ka mid ah Soomaaliya. Sidaa darteed madaxweyne Farmaajo ayaa siyaasad muuqata ula tegi doona ra'iisul wasaaraha Itoobiya. Qodobada muhiimka u ah Soomaaliya: 1. In Itoobiya ay beddesho nooca xiriir ay la leedahay Soomaaliya. Haddii Itoobiya danaheeda uu yahay in ay Soomaaliya maskaxda ka maamusho, taas madaxweyne Farmaajo waxaa qasab ku ah inuu ka dhiidhiyo. 2. In Itoobiya ay joojiso xiriirka tooska ay la leedahay maamul goboleedyada, taasoo caqabad ku ah dowladda dhexe. 3. In siyaasad loo sameeyo militariga Itoobiya ee ku sugan Soomaaliya kuwaas oona ka tirsanayn AMISOM. Ciidamada Itoobiya ee aan AMISOM ka tirsanayn ayaa ku sugan qaybo ka mid ah Soomaaliya, laakiin markay doonaan ayay baxaan, markay doonaanna way soo galaan. Taasna ma aha siyaasad ay ku faraxsan tahay dowladda Soomaaliya. 4. In safaaradda Itoobiya laga raro xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya. Villa Soomaaliya oo ay ku yaalaan xarumaha ugu muhiimsan ee qaranka Soomaaliya ayaa waxaa ku yaala safaaradda Itoobiya, waana safaaradda keliya ee halkaas xafiiska ku leh. Haddii sirta qaranka Soomaaliya la doonayo inay nabad gasho, waxaa qasab ku ah madaxweyne Farmaajo inuu Itoobiya uu sheego in safaaradooda ay ka rartaan xarunta ay hadda ku leeyihiin Muqdisho. Qodobka 5. In Itoobiya ay fududeyso dalku-galka amaba fiisaha oo waayadii dambe aan laga helin qaybo ka mid ah Soomaaliya. Si kastaba madaxweyne Farmaajo ayaa la filayaa inuusan ku mashquuli doonin shakhsiyaad Itoobiya ka soo jeeda oo aysan Soomaalida jeclaysan, sida in Generaal Gabre uusan Soomaaliya ka sii shaqaynin. Haddaba aan u rajayno madaxweyne Farmaajo inuu guul kala soo laabto waddanka Itoobiya, oo aan wada ogsoonnahay in dano aad u dheer oo ka dhana Soomaalida uu maleegayo.